munaasabadan qada sharafta oo ka dhacda hotel Cascasey ee magaalada Kismaayo ayna soo qaban qaabiyeen salaadiinta dhaqanka ee Jubbaland ayaa waxa ka soo qayb galay xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland oo uu horkacaya gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ujeedkeeduna ay ahayd mid odayaasha dhaqanka ay kaga dalbanayeen xildhibaanada in ay codkooda siiyaan musharaxa markana talada haya Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Sheekh Ahmed Madoobe xubnihii ka tirsanaa salaadiinta ee xalfadan soo qaban qaabiyay ayaa madasha khudbada ka jeediyay waxayna xildhibaanada ka codsadeen in ay codkooda siiyaan musharax Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Sheekh Ahmed Madoobe afka salaadiinta annagoo ku hadlaya kuna hadlaya magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland annagu haddaan salaadiinta nahay ninkan shalay idinkeena maanta wadanaa lama qarinayo kii shalay musharaxiintu way badan yihiin anoo afka salaadiinta Jubbaland ku hadlaya ayaguna ay iga dambayn doonaan shalayna annaga keenay oo waana ka codsanay waxaanu dhalay haddaan dib u fariisanay waxaan ogaanay waxa inoo haray iyo qoriga labada qasnadooda hadhay inuu asagu naga bixin karo haddana annagu maanta anoo ku hadlayna magaciisa qabiil ugu hadlamay afka salaadiinta Jubbaland ma ku hadlaya Soomaalidu waxay sariftaa afka aan ku hadlay waa afka salaadiinta Jubbaland way Ilaahay ba qabiil laga koriyay waxaan maanta rabnaa oon xildhibaanadeena idiin sheegaynaa oo aan shalay waxayna raad cusub ma jidkii way kii qudhigiisa yaan annagu maanta wadanaa inaad nala qaadataa ma rabnaa aad ama sacabaynaysan ma yeelay sidaas maya madaxweynihii kumeel gaarka madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam oo haddana musharaxiinta uu ka mid yahay haddaanu niraahno muwaadin ahaan waanu ku garab taaganahay si waliba maaragtay inta dhiman reer Jubbaland ay ku taamayaan si loo dhameystiro haddii aad inta ay nala qaadaan de waxba runtii dhihi maayo maaragtay oo wax khalad kama taagna marka sidaa darteed annagu fariinteenu waxaan gogosha u dhignay waxaan isugu keenay waa arinta waxaan rabnaa musharaxa inaga soo sharaxay madaxweynaha hore Ahmed haddana madaxweyne yahay inaan taageero siino kulligayno ba xildhibaanada wax socodkooda siiyaan dadkana oo taageerno ay rabnaa waxaan jecelahay Ahmed Maxamed Islaam qaataan oo codkiina na siisaan oo galgacal hooyo nagu siisaan oo wanaag hooyo nagu siisaan oo hooyo macaankeeda aad ku qaadataan madaxda sharafta leh walaalayaal kuwaan jeclayno kuwaan banaanka u taagnayno kuway markay xumeeyeen madaxweyne maxamed ila qaata Ahmed Maxamed Islaam noo qaata hadalkan iyo waliba taageerada odayaasha dhaqanka ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli doorashada madaxtinimo ee Jubbaland ay ka harsan tahay muddo 3 maalmood ah isla markaana deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland laga dareemayo ololaha u diyaar garowga doorashada dhici doonto 15 bishan inuu ku guda jirno ee Agoosto Idlaadan Maxamed Degane TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.